shaaga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا من رب الدنيا ذاك جوكتان كنا سؤال واحد كريبتا سومالي ميديا وده بكرة دونا يرن برامج كنا الدنيا ذا لا عجها كريبتا كارثية إسكون أفسنا ده نقول سبتاي لايك سبسكرايب شير أديك بدي كام قلنا أنا جانا واحد بدنا يلقى سامي حكرا سيدر بيان طبعا كنا نود بردقنا لعكت وجودي كريبتا نوجرته وحال دبي على بعضن يلا تريليون دولار كمريكان كسوقنا إيريدان سبعين سوما ديرو marba waxa uu moodaa inuu cabir ku haysto darbiga 1 trillion iyo 21 iyo 22 bitcoin 9,920 iyo $150 Mareykanka ayuu marayaa ethereumna 1,838 xilligan aanu live kanahay waxba kala duwanayaan dhinaca dunida ka kala socda waxyaaba kala duwan maadaama ay socdaan waxaan jeclahay bal in qayb ka mid ah suuqa iyo xaaladihiisa aan idin la wadaago iyo xuraanta suuqa waxyaabaha la isla dhaxmarayo haddaba waxaan oo dhan ku cusub tahay waxaad boqon karaysaa website-keena crypto.com boga casharada beni ma laga rabo waa lacag la-aan waxna ma saarab garanaysid waxaadna heli karaysaa maqaalinta sida loo tuurto fursad kuu noqon karaysa kala wareega nidaam dhaqaaleedkii dunida oo kala wareeg maraya in safka hore aad ka joogtoon doomaha degaya aan lagaga soo tegin BlackRock rajadeeda dhinaca markay noqoto ETF-kan la tilmaamay inay xaraysatay ayaa dad wax indheeya waxay taagan yihiin sida kambaniga Bloomberg shaqaale ka mid ah iyo asxaab kaleba rajaa jirto in saktigu dhamaadka sanadkan bilowga ama wareega koowaad 3 bilood ee ugu horeysa sanadka soo socda dhamaadkiisa isaga naftigiisa in jaanisya ay soo bixi karaan in loo aqoonsado ETF-ka BlackRock inay soo baxdo oo ay Mareykanku ogolaadaan Eric iyo James labada nin ee kala dhahaayaan taagan xaalku raja ayuu leeyahay marka la fiiriyo sida saktigu ay u xaqiijisay ama kambanigan Security Exchange Commission-ka wadanka Mareykanka oo saktiga loo soo gaabiyo ay u aqoonsatay Coinbase inay noqon karto goob suuqyadan kala duwan ee Mareykanka looga ogolaan karayo in ay macquul tahay in Bitcoin Exchange ay noqoto taasoo fursad u siin karaysa BlackRock oo Coinbase ka sanaysa iyo waxyaabo kale meelo kale ah inay awoodi u lahaan karto in raja ahaan iyana ay ETF-kooda ka soo saari karaan saktiga inkastoo Gary Gensler ninkan la yiraahdo saktiga iyo community-ga reer crypto weli buuqoodii uu taageeyahay nidaam sharciyeed kala duwan ay isku haystaan haddana raja jirta ayaa la taageeyahay dhinaca kale laakiin dowladda Mareykanka ayaa kambaniga BlackRock qaybo kala dunidan kale uga dhagan iyadana waa arrin kale oo dhinaca dunida crypto ka mid ahayn laakiin dunida kale oo ay dowladda Mareykanku ay rabto xogaa badan in ay kambanigan ay ka daabsato BlackRock waana arki doonaa arrintaas iyada naftigeedu siday noqota ama ay ku soo baxdo rajooyinkaas iyadoo ay jiraan ayaa haddana waxaa jira dhinaca marka aanu fiirino Bitcoin-ka iyo xaaladihiisa kala duwan in kambanigan Tether la yiraahdo isaga naftigiisu fursada dhinaca markay noqoto suuqa kaalin weyn ka qaata lacagta ugu badan stablecoin-nada ay crypto dhex marto oo idilna kan ugu badan ah ayaa faa'iidooyinkiisa uu ka helo soo issue garaynta iyo saarida iyo soo gelida waxyaabahan uu stablecoin-ka soo issue garayo lacag kala duwan ayuu ka helaa suuqa market makers ay ka kala yihiin marka waxaa fara badan ay suuqa kaashada waxay kaliftaa xilliyada qaar inay faa'iidada ay helaan ay Bitcoin ku gataan waxaana soo badanayso rajada faa'iidooyinka ay Bitcoin-ka ku gataan dad aad u badan ayaa la taagan haddii Tether ay sidan u sii wadaan iyaga naftigooda gadashada Bitcoin-ku darbi ay u noqon karaysaa oo ilaa iyo eriyadan marka ay noqoto aruurinta ay aruursanayaan Bitcoin-kooda 828 ilaa 30,000 u dhaxayntooda waxay noqon kartaa taako dhinaca iyagu ay naga hayn karayaan halka haddaanu fiirino tijaarada caadiga ah ama dadkan sharciyada loo yaqaano institutional investors oo sharciyada u haysta shahaadada looga soo qaatay inay wax maal gashadaan ama loo ogol yahay inay wax liqaan asxaabtaas uu weli xaalkooda waxaa dareemaynaa in uusan fadhin oo aysan suuqa kusoo noqon si weyn laakiin haddana
area ay ka qaraabtaan ay jirto una baahan isha in lagu hayo qaraabashada asxaabtaas dhinaca markay noqoto jeebweynta sida hada company-gan la yiraahdo major seller ninkan la yiraahdo waan dareemi karayno in iminka mar kale uu company-giisan kale la yiraahdo MicroStrategy ama MSTR company-giisan la yiraahdo tickerka ah ayuu 750 milyan oo cusub uu doonayaa in security ahaan share uu soo iibsho gareeyo 750 milyan ayaana bitcoin dib u geli doonta laakiin dadka taajiriinta ay isaga uu la dhaqmayo suuqyadan kale uu yaqaanay tijaarayda ayuu taagayahay anigu waxa idin soo iibsho garaynayaa MSTR share ah oo 750 milyan ah شركات قدرتان بيتكوين ka dambeeyo lacagta idinka qaadanay ayada dhan toosan bitcoin u geeyna marka idinka waxayna garanti waa hawlwelina stepkaas isagoo maraya ayaa waxaad moodaa xogaa dad aad u fara badan in isagana ay soo raaci doonaan waan arki doonaa bal darbigii area uu ka gadan doono mar walba oo company-gan uu bitcoin gatane waxaan dareemi karaa inaan dhaqdhaqaaqiyo in suuqa uu soo geli karayo inkastoo iyaguna meel fiican xilliyada qaar ay ka gataan marna meel qaariya laakiin levelka iyo haynta ama haysashada baahida ayaa aad u kala fog waxaan dareemi karaynaa in ay hadana jiraan dhinaca diraysyada iyo isbedbedeladooda markay noqoto weeliska bitcoin-ka dadka haysta 10,000 ilaa iyo 1,000 dollar oo bitcoin-ka in hadda ay bilaabayaan aruursiga oo iyaguna ay taagiin reer 10 kuley waxaa lidinka doonayaa 11,000 oo bitcoin inaa keentaan saaxiibul kun waxaa laga rabaa 2,000 oo bitcoin inaa gacanta kusoo dhigta abaabulkaasoo dhanna waa jira warjiraaba cakaaru imaanaynahan ciyaal xamar waxaan dareemi karaynaa dhinacan markay noqoto Binance suuqeedii ugu weynaay exchange-ga ugu weyn dunida iyadoo ah ayaa hadana suuqeeda ugu weyn 900 oo kun oo macaamiil ah oo gudaha wadanka China ayaa ka trade garaysa Binance Bitcoin Chinese meel walba istaagay war istaagi kara walba wareeray ahaade Binance ayaa ka sii darto jiray 900 kun oo macaamiil ah oo Chinese ah ee platformka Binance ku trade garayo waxa ay trade garayaan lacag ku dhow record-ka markay noqoto 2023 ee hadda dhinacan dunida markay noqoto trade-kooda uu percentage ka qaatay goobaha ugu badan ee hadda Binance trade-kooda ka socdo waa South Korea, Turkiga, Vietnam iyo Virgin Island jasiiradan la yiraahdo oo macaamiilad u fara badan ay isticmaalaan Binance ayana trade-keeda dhinaca futures-ka 9 bilyan oo dollar oo maray suuqaas waa iska qamar oo leverage-ka waa kala duwan marka China-ska iyo iyaguna waxaad moodaa goobo xilliyo kala duwan ba 2017 iyo 2012 dagaalada u fara badan baa nagu soo qaadaan Binance asalkeeduba 2017 baa iyaga ka soo bilaabatay Shanghai laakiin hadda waagi dib waa iska soo guurtay hadda waxaan dareemi karaynaa dad aad u fara badan in bil waliba Binance 8.6 bilyan bilyan oo dollar oo video contract kala duwan dhinaca bitcoin-ka ay China ka trade garayaan dadku siyaabo kala duwan ba isticmaalaan oo ha ugu yimaadaan China ayaan weli lacag ahaan bitcoin waa aqoon laakiin u yaqaan hanti qofku uu haysan karo laakiin aan wax lagu kala gada karinin waan arki doonaa bal rajadu iyo macaamiisha reer China bal iyaguna sida ay dunida lacagaha cryptocurrency-ga weli jaar sugaystaan Hong Kong ayaa dadaal ka jiraan haddii dadaaladaasi wanaagsanadaan waa rajo wanaagsan inkastoo weli kala guurka dunida iyo cabsiyo fara badan ay jiraan haddana xaalku waa hawdo waxaan isleenahay weli fursada ayaa dhiman la isdhihi karo ilaa 27,000 ilaa iyo 28,000 iyo jajabkiin la arki doono ilaa 26 xintaas ka macquul tahay kulleyba waa rajooyin kala duwan oo dhinacyo kala duwan laakiin suuqu weli areadan 30 ilaa 28 aan aragna bar todobaadyada duma dhaclaynteedu sida ay noo noqoto fursadii kale dhinaca trade-ka muddo koobanaha way dul fiiri kartaan meeshan waa hawdkuna waa halis badeeyahay mana fiicno in lagu fogaado hawdka yaan lagu fogaan boqol sano midkii jiray buuxsha aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso